عليكم ورحمة الله وبركاته وعالمك السلام يا دمان بشوية الصوماليات ميل كستو أتشوكتان دل iyo dibadba waxaan rajeynayaa walaal meel kasta aad ku sugantaan inaad nabad qabtaan inaad caafimaad qabtaan Allah idin siyaadiyaan leeyahay intiina bulshada barwaaqada ku jirta inteena dhimanna Ilaahay dhulka ka dulqaado badal khayr qabana Allah ha siiyo inta kadib walaalayaal halkan waxaan u soo fadhiistay inaan idin la wadaago laba qodob si gaar ah bulshada reer SSC aan la wadaago labada qodob koowaad waxa weeye waa umahanaqa iyo bogaadinta iyo garabgalka garaadada reer SSC garaadada dhulbaahante oo runtii had iyo habeen u taagan sidii mataqaana markii dhibka ay u qaboojin lahaayeen ummadda maslaxad mataqaana u dhaxdhigi lahaayeen nabadda had iyo habeen ka shaqeynayo runtii shaqo adag bay hayaan garaadadaas shaqadii loo igmaday mid ka weyn bay hayaan runtii waxa shaqo mataqaana maadaama deegaanku aanu maamul lahayn shaqadii maamul laga sugayay bay qabtaan runtii wax iyaga maamul ah iyaga booliis ah iyaga ciidan ah runtii waxaan rabnaa inaan garaadada mataqaana halkaan mataqaana anugu ku hadlayo dhalinyarada reer SSC afkooda aan uga mahad celiyo una mataqaana uguna duceeyo waxa la yahay garaadayaal waa idinku maalay runtii nin ragana og nacasna loo sheegi maayo dadka qiimaha iyo qaayaha ugu fadhidaan had iyo habeen mataqaana inta aad u guureynasaan maalin iyo habeen ba aad safar ku jirtaan sidii meeshii markii dhib ka dhaco mataqaana aad markiiba u gaari lahaydeen oo xaajada mataqaana aad u daba qaba lahaydeen ilaahay waxa idinka rajeynayaa in mataqaana ilaahay idin fududeeyo ajar iyo abaal la ilaahay idinka siiyo ajarkiina ilaahay janno ka dhigo runtii waxaan rabaa si gaar ah inaan mano garaadada guud ahaan marka hore u wada hambalyeynaya si gaar ah inaan ugu hambalyeeyo garaad jaamac garaad cali oo runtii laf dhabar u ah mataqaana shaqada mataqaana halka laga hayo ay garaadadu ku hayaan hormuudna waa garaadada kalena ay ku garab taagan yihiin nabadeynta oo ay dumaysay nabadeyntii loo dhex dhigay mataqaana laguna soo gabagabeeyay laguna soo xiray halka colaadii meelaha walaalaha baa khayr u dhaxaysay runtii arintaas aad baan u bogaadinaynaa cid kasta oo gacan ka geysatay iyadana waa ku bogaadinaynaa oo uu kow ka yahay madaxweynaha dowladda deegaanka Mustafa Cagjar xafidallahu ilaahay karaameeyo ummadda abaal buu gashaday uu karaameeyay sidaas oo kale islaam ciise iyo cid kasta oo mataqaana gacan ka geysatay cid kasta oo qaaraanka wax ka bixisay cid kasta oo heshiisiintii iyo mataqaana maslaxadii ummadda la dhexdhiga ka soo shaqeysay marka hore intaas waa inta garaadada waxaan rabaa halka inaan u gudbo qodobkii kale ee ahaa qodobka dhalinyarada ee gobolada reer SSC runtii kaalintii dhalinyaradu way maqan tahay walaalayaal waxaa la joogaa waqtigii aynu kaalinteennii soo cesho lahayn kaalinteennii way maqan tahay way bannaan tahay inaan buuxinaan laynooga fadhiyaa